warar dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaal u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo kuwa macawiisleyda oo iskaashanaya iyo ururka al-shabaab kaasi oo gelinkii hore ee maanta ka qarxay deegaanka ceel kooxle oo ka tirsan gobolka Hiiraan isla markaana qiyaas ahaan 35 kiiloomitir dhanka bari kaga beegan deegaanka istiraatiijiga ah ee Moqokori. dagaalka oo ahaa mid culus ayaa waxa uu yimid kadib markii ciidamada dowladda oo kaashanaya maleeshiyaadka macawiisleyda weerar dhowr jiha ah ay ku qaadeen deegaankaasi oo ay ku sugnaayeen xoogaga al-shabaab oo is urursanayay doonayeen in weerar ay soo qaadaan waxaana halkaasi ka dhacay qaraxyo ay al-shabaab adeegsadeen kuwaasi oo qaarkood lagu tilmaamay inay ahaayeen ismiidaamin kadibna dagaal toos ah ayaa qarxay. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ilaa iyo iminka dagaalkan uu sababay waxaana dadka ku dhintay ka mid ah Allah u naxariistee nabadoon cilmi hagar guure oo caan ka ahaa gobolka Hiiraan kaasi oo dhowaan qorigiisa u qaatay in uu al-shabaab kaga saaro qaybo badan oo ka mid ah gobolka Hiiraan. marxuumka ayaa sidoo kale ahaa nabadoonkii guud ee beesha Cali madaxweyne ee Xawaadle waxaana geeridiisa si weyn looga dareemay baraha bulshada. gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed oo la hadlay warbaahinta ayaa shaaciyay in dagaalka uu weli socdo isla markaana khasaare xooggan lagu gaarsiiyay ururka al-shabaab. howlgalladu waa ay sii socdaan hadda aan kula hadlayo dagaal ayaa socda oo xabadda ayaa dhacaysa waxaana aan hubaa in al-shabaab halkan lagu jebiyay meydadkooda ayaan soo bandhigi doonaa ayuu yiri. dhinaca kale qoraal ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in al-shabaab jab xooggan lagu gaarsiiyay weerarkaasi 30 xubnood oo iyaga ka tirsanna halkaasi lagu dilay iyada oo la sheegay in howlgalka uu socdo isla markaana uusan istaagi doonin inta al-shabaab ay ku sugan yihiin taaka ka mid ah gobolka Hiiraan iyo guud ahaanba gobolada dalka Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamsi Cabdi Barre ayaa dagaalkaasi war ka soo saaray iyo geerida Allah u naxariistee nabadoonkii caanka ahaa ee reer Hiiraan. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamsi Cabdi Barre waxa uu ka tacsiyeeyay geerida nabadoon cilmi hagar guure oo lagu dilay dagaal ka dhacay ceel kooxle isla markaana dagaalkaasi uu ahaa mid uu isagu qayb ka ahaa al-shabaab dagaalkooda. ra'iisul wasaaraha ayaa fariinta uu soo saaray waxa uu ku yiri waxaan ka tacsiyeynayaa geerida xaqa ah ee ku timid nabadoon cilmi hagar guure oo maanta ku shahiiday dagaal ka dhacay jiida hore ee dagaalka ee deegaanka ceel kooxle ee gobolka Hiiraan ayuu yiri. mujaahid cilmi waxa uu ka mid ahaa odayaashii ugu horeeyay ee diiday gumaysiga iyo dhibaatada ay dadka Soomaaliyeed ku hayso argagixisadu ayuu yiri ra'iisul wasaaraha wuxuuna astaan iyo halbeeg u yahay jihaadka iyo dabargoynta ka dhanka ah kuwa dalkeena nabadda u diidan ayuu yiri. waxaana ra'iisul wasaaraha uu ugu baaqay qaybaha kala duwan ee ciidamada macawiisleyda iyo kuwa xooga dalka inaysan ka baaqsan howlgallada noocan oo kale ah oo ay sii wadaan isagoo sheegay in mar walba uu ka shaqayn doono sidii al-shabaab awoodooda loo wiiqi lahaa. gobolka Hiiraan oo inta badan laga saaray ururka al-shabaab ayaa waxaa la warinayaa al-shabaabka weeraray ceel kooxle in ay ka soo ruqaansadeen qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe oo weli uusan ka bilaaban howlgallo iyaga looga soo horjeedo. guud ahaan intaas ayaan ku soo koobayaa muuqaalkan haddii aad dhammaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale mahadsanid. waalidweynaha qurbaa ku nool waalid ka faa'iideyso fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada islaamka waana maxad ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada quraanka kariimka barashada akhriska higaada luqadda carabiga barashada afkeena Soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida kutubta fiqiga xadiiska iyo tafsiirka waxa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxaya at-tahiyaadka salaada iyo aayad kursida waalid hadda ka faa'iideyso oo hadda isqora maxadka tartiilul qur'aan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore ula xiriirno maxadka tartiil qur'aan online
waalidweynaha qurbaa ku nool waalid ka faa'iideyso fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada islaamka waana maxad ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada quraanka kariimka barashada akhriska higaada luqadda carabiga barashada afkeena Soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida kutubta fiqiga xadiiska iyo tafsiirka waxa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxaya at-tahiyaadka salaada iyo aayad kursida waalid hadda ka faa'iideyso oo hadda isqora maxadka tartiilul qur'aan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore ula xiriirno maxadka tartiil qur'aan online